Asxaabta waxaan idinla wadaagi doonaa sheeko xikmad badan oo saameyn kugu yeelan doonta. Waxaan hubaa haddaad sheekadan xikmadda aad ka dhuuxdaan, xikmaddan aad u isticmaashaan noloshiina in badan noloshiina ay wax ka bedeli doonto. Kaliya si fiican ii dhegeyso. Waxaan leeyahay iskuna day inaad fahantid xikmadda ay sheekadan leedahay. Sheekadan ayaa ku dhacday nin ganacsato ah oo ku noolaa magaalo. Ninkan ayaa ahaa nin ganacsato ah oo alaabada ka baayac mushtara. Ninkan wuxuu lahaa dameero uu alaabta ku soo qaato. Dameeraha waxaa ka mid ahaa dameer weyn oo in badan u shaqaynayay. Ninkanna uu si gaar ah uga jeclaa dameeraha kale. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo ka soo noqday safar dheer dameerihiisina wato ayaa dameerkii duqa ahaa uuna u jeclaa dameerihiisa wuxuu ku dhacay god. Waxayna marayeen meel cidlaa oo ciirsilaa. Wuxuu eegay dhinacyada, cidnana wuu ka waayey. Cid caawiso ayuu u baahday, balse meeshu waa cidla ciirsila. Dameerkuna wuxuu ku dhacay god ninka uusan awood u lahayn inuu kaga soo saaro awooddiisa. Ninkii ayaa niyad jabay. Dameerkuu jeclaa wuuna kaga tegi karin meel cidla ah. Awood iyo xeelad uu godka kaga soo saarana uuna lahayn ayaa murjisay. Balse markii dambe wuxuu go'aansaday inuu dameerka godkiisa ku aaso intuu kaga tegi lahaa meel cidlaa dameerkoo rafaadsan. Ninkii ayaa ku shubay carro uu meel ka qoday godkii dameerka uu ku jiray si uu dameerka ugu aaso meeshiisa. Marba marka ka dambayso uu carro ku dul shubo dameerka. Dameerka ayaa ka gilgilinayay carrada dusha uu kaga shubayo ninka. Carrada ayaa markaa halkii dameerka dushiisa ay fadhiisan lahayd ayaa dameerku intuu ka gilgisho carrada ka daadanaysay hoostiisana ku shubmaysay. Haddaba waxa cajiibka ah ayaa waxay tahay mar walba uu carro badan ninka ku dul shubo dameerka, dameerka ayaa intuu ka gilgisho carrada ku istaagayay. Oo sababtoo ah carrada markii dameerka uu ka dul gilgisho dushiisa markuu ka gilgisho waxay ku daadanaysa hoostiisa markay ku daadatana uu ku dul istaagayay. Kor ayuuna uga soo foocayay godka. Ninkii ayaa ku shubayay carradii marba mar ka dambayso uu carro badan ku shubo dameerka ayaa ka soo foocayay godka oo kor uga soo baxayay. Ninkii ayaa markii dambe xaqiiqsaday carradan uu dameerka ku dul shubayo in uu dameerku kaga soo foocayo godka isla markaana kor uga soo baxayo godka. Adigu ugu dambayn dameerkii ayaa ka soo baxay godkii dibaddiisana yimid. Haddaba maxaan ka faa'iidi karnaa qisadan? Qisadan waxaan ka faa'iidi karnaa marba marka ka dambayso uu ninka ku dul shubo carra culus dameerka dushiisa. Dameerka ayaa carrada ka gilgilanayay korna uga soo baxayay godka ilaa ugu dambayn uu godkii ka soo baxo dameerkii. Dhib kasta oo ku haysta ka qaado wixii cashar ah kuna dabar noloshaada caqabadaheeda. Daawade xikmadda sheekadan ayaa waxay tahay ka hel cashar dhibaatooyinka nolosha kaa soo wajahaya. Daawade ogow mar kasta muhiim maaha dhibaatada ku haysata intay la eg tahay, balse waxaa muhiim ah sidaad uga falceliso. Caqabad kasta oo ku haysata ka qaado wixii cashar ah kuna dabar. Fadlan haddaad ka heshay fiidiyowgan ku soo biir Halkarka TV si aad u heshid qisooyin xikmad badan iyo mowduucyo kale.